بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى والعليال إلهي ومهد سبحانه وتعالى. كلمة يرو قابنو دور قدب كوبن حليتو وحارير جبوتي سيدي وديهين انتو إذا جوكتا قدها انت بنانكا iyo dadka adduunkan la deganba waxa runtii xoog looga yaabay oo looga naxay video ay soo dhigtay baraha bulshada walaashan Sameera Xaaskii Fuad Yuusuf Ali. runtii dhowr video gaagaaban oo tusaya xadgudub loo geystay gurigii walaalkeen Fuad xaaskiisa iyo ubadkeegii. waxa ka muuqda videoda gaagaaban argagixiso kale in argagixiso la geliyay goor habeena reerka nabadda waxay yiraahdaan dawlad waxa lagu gartaa qolada culuumada siyaasadda la science politique gaar ahaan l'éthique de la politique marka laga hadlayo siyaasadda akhlaaqada ku dhisan marka laga hadlayo waxay yiraahdaan dawlad maxaa lagu gartaa weynideeda dawladiinay dawlad tahay dawladiinay inay magacii dawladnimo si dhab ah u sidato maxaa lagu gartaa bay yiraahdaan dawlad maamuus cizi iyo sharaf inay leedahay maxaa lagu gartaa bay yiraahdaan waxa lagu gartaa qaabka ay ula dhaqmayso dadkeega haddii dawladii dadkeega maamuusto oo ciideeda ay cizeyso ay karaamayso waxay yiraahdaan halka waxa ka muuqata astaan bay u tahay dawladdaasi inay dawlad tahay si c'est bien un état qui porte bien son nom. dawladdaas waxay noqonaysaa dawlad si dhab ah magacii dawladnimo wax xambaarsano u sidatay noqonaysaa haddii dawladdu dadkeega sidaa si aan ahayn sidaa cagsigeega ka soo horjeedka sidaa haday ula dhaqantana waxay yiraahdaan waxay ku tusaysaa dawladdaas inay tahay waxba la'aan. walaalayaal falka xalayto reerka loo geystay runtii ma aha fal tusaya culayskii iyo macnihii dawladii ay lahayd waa farina tusaya cagsigii macnihii dawladda ay lahayd. laba erayo taa ku saabsan maxaa keenay in sidaa loola dhaqmo qoyska walaashan Sameera iyo maatida maxaa keenay sida muuqata walaalkeen Fuad markii la soo celiyay dee waa la baryootay xoog baa loo baryootay iyada hooyadeed qaraabadiisii dhaweyd xoog bay u baryootameen in Fuad la helo waa lagu saaray waa lagu laagay ilaahay Fuad wuxuu soo diray videoogii uu iskaga soo duubay maxaan ku leedahay zanzanadii uu ku jiray siliilkii uu ku jiray qafaskii uu ku jiray videoogii ka soo duubay buu ilaahay u bixiyay ayuu ilaahay Fuad u bixiyay qiil buu ilaahay u bixiyay jalla wa ala qiilkii wuxuu noqday videoga warkii Fuad baa caalamka gaadhay marka waxa muuqata hadda waa la soo rogaal celiyay waxa lagu soo rogaal celiyay waxa kan naga damiya Fuad shaqadiisii baa lagu celin waa la soo deyn retorigi caadiga ahayd wixii weligeed bal akhriyay marka waxa culays cadaadis aan caadi ahayn baa la saaray pression baa la saaray taqti waa culays aan caadi ahayn baa la saaray sida muuqata ooridiisii iyo hooyadii iyo qaraabadii dhaweed culayskii way diideen waxay ku adkaysanayaan Fuad in la sii daayay bay ku adkaysanayaan marka hadda lagu kari waayay qoyskii culayskii iyo cadaadiskii marka lagu kari waayay falkan iyo sida muuqata falal kale soo socda ayaa la rabaa in lagu la dhaqmo qoyskii lagu la dhaqmo. erayga labaad de hadda ka horba waan sheegnay Fuad xaaskiisa iyo hooyadii iyo qaraabada dhoobaha la calool adeego waa xilligii loo baahnaa calool adeeg innagana waxa la inooga baahan yahay waana la muujiyay walaalaha reer Djibouti gudaha iyo dibadda waa la muujiyay Soomaaliya oo dhan baa muujisay dad ajaanib oo Soomaali ahayn baa muujiyo kale oo reer Djibouti baa ka baxsan baba ayaa muujiyay waa inaanu muujino agjoogid يعني هيل iyo hooba waa in la garab joogo waxa loo baahan yahay moraalka in loo adkeeyo loo baahan yahay marxaladda aan marayna bay tabiicadiisu sidaa tahay c'est la nature même des événements que nous traversons
xilligaa aan joogno ayaa ina faraysa in la adkaysto inaad adkaysatiin buu xilligu ina farayaa annagana xilligu wuxuuna farayaa in laydinla garab joogo oo hiili iyo hooba laydinla garab joogo ayuu xilligu farayaa intaa waxaan ku dhaafi dhacdada foosha xule ee xalaytaan ka daawanay baraha bulshada qodobka labaad sida muuqata waxa loo yeedhay wadaadadii culimadii wadanka loo yeedhay waa la shiriyey waxaa lagu yidhi wadanka waa la qasayaa wadanka waa la rogayaa nabadii aan ku caanamaalay ee ilaahayna siiyey dad baa gambiyaya marka waxaa la yidhi waa inaad martiin TV-ga waa inaad martiin mid iyo labo ood fidnada cidda wada aad la hadashiin reer Jabuutina aad ku tiraahdeen nabadda aan ku daaqno wadaadadii shalay baa la kulmiyey marka hadda TV-ga idaacadda kaliya wadanku leeyahay waxaa laynagu daalin doonaa hadal word ama hadal macnaheedu sida yahay oo culimadii ayaa saa lagu yidhi culimada warkaa way qaadeen kulay habeenada soo socda ayaan dhageysanaynaa halkaana waxaan jecelahay inaan dhowr erey ka idhaahdo ereyga koobaad culimada waa la adeegsanayaa maxaa loo adeegsanayaa de waxaa la yidhi balaayadan waxaa horinaya niman wadaada oo magacii diinta sheeganaya markaa de wadaad baa laga horgeeyaay waa quraanka laga horgeeyo xadiiska laga horgeeyo dadka wax muqadas ah loo sheego oo wadanka in fidna laga ridayo ha loo sheego macnuhu waa sida xagga waxa ka soo jeeda niman shaar wadaad sita sidii ayagu leeyihiin de xaggana waa in culimo iyo wadaad laga soo jeediyo macnuhu sida weeyaan quraan ha laga horgeeyo sida ayagu u dhigayaan macnuhu sida weeyaan walaalayaal wadaadada ama culimada baaqa shalay loo jeediyey ayaguna baaqa ka jawaabi doona waa laba u kala baxaan aniga aragtideeda labaan u kala saari in tiro yar culimada in kamid oo tiro yar oo iyagu u haystaba sidan inay saxtay waxaan ku noolahay adduunkeenu dulmi jirin Jabuuti dulmi ma jiro waa cadaalad waa barwaaqo dekada la sameeyay lacag xoog la jirta mushahar waafiya la qaataa dhulku waa janno barwaaqa lagu jira nabad baa la hayaa ma sha Allah waa janno ku sugtana waa janno waxaan ku sugeynaa jannadii Ilaahay noo ballan qaaday wadaadada in yar oo ragga kamid oo sidaaba rumaysan baa jira dhab ka tahay saasay ku qanacsiin duruufta waayaha aan ku noolahay ka cabanayno jeel baa jira saacad aan la dhex fadhiyi kareynin gabood walaalkeen Fuad meesha uu ku jiray inaynan jirin inuu jeelku barwaaqo yahay in wadanka sinaan ay ka jirto inaynan qabyaaladii jirin in dulmi inuunan jirin wadaadada in yar oo tiro gaaban oo tiro yar ayaa rumaysanoo ayaga sidaa waxay ka tahay baa dhab markay khudbadeynayaan ama dadka ay wacdiyayaan adduunka ay ka hadlayaan iyo Jabuuti inagu aan ku noolahay maaha wadaadada noocaas waa tiro yar weeyaan intooda badani way arkayaan waayuhu sidoo yahay arkayaan xaaladda wadanku ku jiro way arkayaan inay jirto way arkayaan hantidii wadanka in la qaybtamay sharikaad baa laga dhigay sharikaadka de laba sharikadood hebel baale afar hebel baale shan hebel baale nimanka dalka xukuumada wixii sharikaad ka wada dhigo iyaga qaybtamay way arkayaan cadaalad darrada wadanka ka dhacaysa way arkayaan videoga Fuad ka soo duubay way daawadeen oo way u jeedaan oo way arkayaan dulmiga iyo eexda iyo silica wadanka ka jira way arkayaan laakiin de mushahar bay qaataan dawladda oo shaqeeyaan waa loo yeeray amarkii baa la siiyey amarkii fulnay qolada waa la isku dhaxaystaa waxna way rumaysan yihiin oo waa kan oo way u jeedaan oo bulshadan bay la nool yihiin de hoos bay u daawadaan videogii Fuad way daawadeen way dhageysteen wayna daawadeen video kasta oo wadanka ku saabsan way daawadaan wararka adduunka dhageystaan waxa way ka soo horjeedaan dulmi waxa la yiraahdo way ka soo horjeedaan laakiin amar baa la siiyey qolada waa la isku dhaxaystaayo dhibaato xoog la haysataa waxa ku murmaya dhexdooda waxa ku murmaya quraankii Ilaahay oo sidiisii u hadlaya iyo mushaaradii iyo shaqadii oo si kale u hadlaysa isku dhaxaysta waa la isku dhaxaystaa dhexdooda waxa ka jira xarbi ahliya aan conflict maxaan ku raadayay civil aan conflict civil ayaa dhexdooda ka jira dagaal aan caadi ahayn xaqii baa la sheeg dulmiga ka hadal miidhada ka hadal
karaamo xumada ka hadal sirica ka hadal xaqii baa sida loo quraankii baa sidan kule xadiiskii nabiga baa sidan kule sallallahu alayhi wasallam xaqana waa mushaharkii iyo shaqadii iyo cagajugleyntii marka fariintii uu soo qaaday laakiin waa la isku dhaxaystaa aakhirkana wuxuu rabaa inuu wuxuu sheego si uu u hadlo buu rabaa labada qoliyo wadaadada labada qaybood qaybta hore waa yartay qaybtan dambe badan qaybta hore iyagu sidan bay rumaysan yihiin ba qaybta dhibaato badan ma haysato dhinac bay isku raacsan yihiin adin kaliya isku taagin oo dhinac bay isku raacsan yihiin laakiin kuwa dhibaatada culus haysatay waxa weeyaan kuwa jecel waaqaca inay ka hadlaan oo dhibta meesha taagan ay u muuqato laakiin qalbigii lagu hadlayay quraankii tooska lagu sheegi lahaa qalbigii lagu hadlayay xadiiskii nabiga tooska lagu sheegay qalbigii baan jirin kuwa waxa ka dhex oogan dagaal xooga waa dualité bay ku nool yihiin ils vivent dans une dualité cruelle waxay ku nool yihiin shakhsiyad la isku dhaxaysto oo laba ah oo lagu dhimanayo ayay ku dhex nool yihiin walaalayaal labada markay hadlaan way hadli doonaan kuwa hore iyo kuwa dambe markay hadlaan maxay ka hadlayaan ayaga waxay rabaan baa ka hadlaan laakiin aan waxaan u macnaysanayaa waxay ka hadlayaan waa inay indhaha iska qabtaan fuaad iyo qolka uu ku jiro kaniifka fuaad iyo kaniifka uu dhex jiifo waa inay indhaha iska qabtaan ilaa kama hadli karaan fuaad maxkamad cadaalad ku dhisan garnaqid ama garsoorid cadaalad ku dhisan fuaad inuu helayn way ogyihiin kama hadli karaan hadda waxa la xidhay dhalinyar wadanka wixii jirtay xaafad kastaba dhalinyara saacada aan joogno ayaa xidhan oo xalayta lagu waabaristo waa la guray kama hadli karaan waxa ma sheegi karaan wax kale ka hadleen marka waxay ka dhigantahay waxay doonaan baa ka hadlaane waxay ka dhigantahay iyaga wadanka waxaasi ma jiraan bay ka dhigantahay maadaama ayna si toos ah uga hadlaynin waxa ka dhigantahay wadanka waxaasi ma jiraan waxaan ka hadlayaa wadanka jira wixii aan ka hadli waayay de wadanka ma jira macnihiisa ka dhigantahay xadiisna muxuu qiimo leeyahay quraanku uu soo degay quraanku markuu soo dego wuxuu ka hadlayay waayaha jiru ka hadlayay waayaha ya les conditions ambiantes la révélation racontée parlait des conditions ambiantes réelles effectives présentes ici et maintenant quraanku wuxuu ka hadlayay waayaha markaa jooga ayuu kitaabka Ilaahay ka hadli jiray jalla wa ala waxaas ka hadlayay diintu markaa dhadhan bay lahayd مشاكل بعد عائشة ليدي رضي الله عنها والذين يستبع ليدي سورة النور باسو دكتو إلهي وحاسو كهذي غزوة بدر بعد قرآن غزوة أحد بعد قرآن غزوة الخندق بعد قرآن كو إلغا كونتي لا محان كل هذا لا سيتواسيون أكتوال وحي جوغو قرآن كو كهذي مركا ما أنت محو نقني مركا ودنك وحا كجراي وسيدايهي إنن كالا ميري meesha ku dhimanaya wadaad markuu ka hadli waayo quraanku markuu taa ka hadli waayo muxuu markaa quraanka la akhriyay qiimihiisu muxuu noqonayaa waxaan ku oran lahaa wadaadada hadlaya xababaan idin sheegi lahaa haddaad iska hadashaan oo tiraahdaan waa sax nabadgelyo loo baahan yahay amni baa loo baahan yahay dhulka xasillooni baa loo baahan yahay cid wadankan jecelna dhibaatay sabab ma jirtaba dadka maanta hadlay ayaga cid walba ka jecel wadanku inuu ku noolaado nabadgelyo inteena reer Djibouti gudaha joogta iyo inta dibadda joogta waxay jecel yihiin wadanka in nabad lagu noolaado way jecel yihiin walaalaha dibadda jooga aniga aad baan u aqaana Yurub iyo Australia iyo Mareykan iyo Canada waxay shaqeeyaan intooda shaqeeyay waxay shaqeeyaan 12 saacadood oo waxay shaqeeyaan isxigto oo rafaad ay shaqeeyaan $100 soo dir $200 soo dir way soo tuuraan laakiin lacagtaas sida ku keenan Ilaahay baa yaqaan ils arrachent leur pain de la bouche du lion waxay kala soo baxaan gurigooda caloosha libaaxay kala soo baxaan oo habeenkii bay soo jeedaan laba shifti way iska dabasho shifti 8 saacadood waxay raaciyaan shifti labaad oo 8 saacadood 16 saacadood ba shaqeeyaan way jeclaan lahaayeen halkaas kaga yimaadaan oo Djibouti oo nabad inta yimaadaan ay Djibouti ka shaqeystaan oo mushaare helaan ehelkooga hooyooyinkooda abayaashood walaalahooda asxaabtoodii kaartiyoygii kaartiyo 1 2 3 bal inay iska joogaan way jeclaan lahaayeen amniga walaalaha hadlaya gudiyo dibad cid ka jecel ma jiro marka amniga wadanka cid ku galgalanaysi ma jiro cid wadaad gubaya wadankana ma jiree wadaad kasta waxa ku waajiba inuu sugo amniga wadanka inuu sugo baa ku waajiba waxaan ku oran lahaa wadaadada
حديث النبي إلى إذن حسوسين إلا وداداتين وتقانين حديث عمر باوري إمام ترمذي وحولي حديثه وحسن صحيح حديث كان النبي إلى محولي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نبي إلى وحولي تذهب خماصا وتروح بطانا صلى الله عليه وسلم هداد إلهي ترى سار الله يدين ترى سار شربا هداد إلهي اسكو هالين الله يدين اسكو هالين دبا إلهي وحو حيدين سين لها سيدا الشمبرته وحوسيو مركب النبي شاقي إلهي سيدا الشمبرته وحوسيو جل وعلا وحو النبي إلهي عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا شمبرته صبحي بيك الله هذا أيضو بق مرن علوش وأي مرن توقع جيسا وتروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا تروح عصر كينا وحي سويتها بطانا أيضو علول بورانو دركتي جيت كي كبحدا لنعب الدوشا إلهي بتلسارتها أيضو قاجيسن عصر وحي سويتها أيضو دركسن هداد اسكوها اللين ربا إلهي اسكوها اللين لهيدان إلهي سيدا شمبرتها بويدين أرزاقي لها وحن كلها وداددا هداد إلهي سيدا اسكوها اللين لهيدان أود ما أنتو ورن لهيدين والله وصح ودن كنا بتقلي وباهي ونبض وين لنبضيو لكن ودن كالظلم باجرو الظلم هو إفكتيف شالي وحو قرعي هبلاي هبل ما أنت نفوات بو هايستا بريتني هبلاي هبل بو قرعي ميدادا ودن كتالاي عادي ماها qofku qofnimadiisii ma haysto qofka ilaahay baa qofka dhigo ilaahay baa darajiyay war qofkeeni reer Djibouti maanta rag iyo dumar wuxuu doonay baa noqday qofnimadii looma ogola dadnimadii looma ogola gabadhii gabadhnimo looma ogola hooyadii hooyanimo looma ogola ilaahay haybadii iyo mudnaantii aad lahayd laguma ogola maamuuska aad lahayd laguma ogole waxa la rabaa adoo carabka laadlaadinayo inaad rukuucda ama aad sujuudaa la rabaa hadaad wadaad yahow maalinta tiraahdo anigu sidaa ma karayo diinta hadba wixii aniga ii muuqday ilaahay uu ii faray baan sheegi ee idinku waxaad ii fartaan sheegi ma hadaa sidaa tiraahdo waxa lagu sameyn shaqada laga yiri waxa ugu weyn lagu sameey shaqada hadii laga yiriyo de reer Djibouti fara badan baa jiro shaqo laga yiriyo ilaahay baa wax siiya shimbirta baad iska noqoni shimbirta reer Djibouti maanta in badan oo wada shimbira jira subaxii bay baxaan ayagoo gaajaysan habeenkii bay soo noqdaan ayagoo dhagsan دي ودادي هو حديث كان النبي قال صلى الله عليه وسلم ما أنت واحد ترى أنا قنبار كي لجو هذا ينقل مايو قنبار توكي لجو هذا واق هذا بوحي لجو شو بشيء أنا نقول مايو ميكروفون كي لقى حد أنا نقول مايو أنا قاعد يسمر ماسة وحن نقول أنا وحن رباين أنا هذا أنا أديكوا شيخ واحد ترى أنا وحن رباين أنا نقول شيخ هبل أنا شيخ هبل حق هذا وحي فران يالي هذا ترى هذا مشارده لغا goyn ilaahay baana ballan qaaday mushaarawaad iska heliyo dadkaadi baa dhex joogtaayo gaajo ku dili mayso jazaakum allah khairan wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullah